إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم. reer bani Israa'iil oo Ilaahay uu dhaqaale siiya jiray oo qani ahaa laakiin wuxuu ahaa musrif oo israafay ninkaas naftiisa uma fiicnay ومعاصي بدنا والله نعمية أولاد با إلهي سيئي أرزاقات با إلهي سيئي عافمات با إلهي سيئي مع ذلك هدنا وحوها من عاصي أبوها لكن صفة عجيب لها صفة دي سمعية dadka ayuu lacagta ama hinjiray marka kii soo celiya xilliga lagu ballamay uu ka qaadanayay ka ballanta ii birigaadina ballantu u kordhinayay ka keeni kari waa inuu iska cafinay maalintuu dhimanayay buu inamadiisa u yeedhu yidhi aniga ilaahay aabba waa ii nicmeeyey laakiin nicmadda ilaahay waa ku kufriyey waxaan ilaahay loo hortegayo iga horreeyo khayr aanu ma garanayo ma garanayo wax khayr oo iga horreeye aabba dadka sidaan ula tacaamula buu daymiya ka daynka soo celiya xilliga lagu ballamayna ka qaata ka daynka soo celin kari waayana ka cafiya ka ballanta noo diiri yidhaahdana mawcidka u diriya maalinkuu dhintay ayaa ninkii ilaahay la hor joojiyey ilaahay baa yidhi soo saara ii keena addoonkaas markaasaa ilaahay yidhi addoonkaan u nicmeeye ma tihi waan ahay addoonkii baan maxaad la timid maantu agteeda aad soo dhigatay waxba mujrim baan ahay daalim baan ahay faasiq baan ahay musrif baan ahay mutrif baan ahay waan israaf markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku yidhi miyaanad ahayn addoonkayga iyo addoommahayga dayminayey ee sidaa ula tacaamulayay maad ahayn waan ahaa addoonkaygii miyaanad ahayn maalintuu soo dhimanayay wiilashiisa kala dardaarmee yidhi ka daynka soo celiyana ka qaata ka mawcidka noo biri yidhahdina mawcidka u biriya ka soo celin kari waayana iska cafiya addoonkii inamadiisa sidaa kula soo dardaarmay in addoommahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid waanahay anna waan ku cafiya jannada galbaa ilaahay والعافين عن الناس والله يحب